dadka danyarta ah ee ku dhaqan xerada qaxootiga ee Dhagaxley ayaa siyaabo kala duwan ay noloshoodu ugu tiirsan tahay suuqa xerada qaxootiga ee Dhagaxley iyadoo ay subax walba u soo xoogsi tagaan suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley waxayna noloshooda u kala maareeyaan siyaabo kala duwan iyadoo inta badan ay ka shaqeeyaan shaqooyinka yaryar halka qaarkood ay iskaga dhex nool yihiin dadweynaha ku dhaqan xerada qaxootiga ee Dhagaxley barihii ugu dambeeyay ayaa si weyn looga dareemayay suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley laan baahsan waxayna arintaasi ay si weyn u saameysay dadka danyarta ah ee ku dhaqan xerada qaxootiga ee Dhagaxley Maxamed Cabdi Cali waa nin xamaali ah oo ka xamaasha suuqa xerada qaxootiga ee Dhagaxley waxaana iiga waramay saameynta ay ku yeelatay suuq la'aanta ka jirta xerada qaxootiga ee Dhagaxley magacayda waa Maxamed Cabdi Cali arintaas saameyn said bay nagu yeelatay annaga markaan nahay dadka xogsatada ku shaqeysanay gaari gacanka wax hadda maartay marka hore biilku la heli jiray hadda waa biilku waysan baad iska hoynaysaa iska baxaysaa taasoo marka ay keentay qaxootigii oo dhaqaalaheedu hoos u dhacay taasoo marka ay keentay inuu sulsaar fara badan uu ka dhacay xaryaha mareeshinkii la qaadan jiray uu hoos u dhacay lagu maareyn jiray markii hore markaad hesho biilkaada aad hesho waad ku adeegan jirtay way ku anficayso maartay biilkaada way maartay reerka u qaadanaysaa wax waad ku gadanaysaa wax iyagana way ku anficayeen laakiin hadda hadii meeshii dhaqaalihii hoos u dhacay gaadiidkii wax keeni jiray hataa ay waxba keenaynin marka ummadina ay intii ka sii yaraato wax Soomaaliya aad iyo wax dibadaha aad ay noqdeen aad Maxamed aad ma ka hadalay raashinka jay nabadgelyada madiinada waa haysan tan kale wal kaasada malag oo wadanka gaargaan leeyna 70 jir ah 70 jir yaanahay gaargaan leey waay madarka malay wala libiyayo matarfish leeyin gargaar libaay matarfiiskii wayaftawil wal maleeyahay waa eber tan kale gaaran leeyahay 70 jir waay 70 jirkii baasamala suuq waa eber baasamala baase malaha waan ku maalidaani adduunka wala arkay malaha wala galay malaha aan gaabno Yusuf Abshir Umar waa wiil yar oo agoon ah waxa uu ka mid yahay caruurta ka shaqeysa baalashka ama casaynta kabaha waxa uu barnaamijka gargaar uga waramay saameynta ballaaran ee ay ku yeelatay suuq madoobaadka ka jira xerada qaxootiga ee Dhagaxley waxa uu intaasi uu ku daray waqtigii hore ee suuqu fiicnaa inuu suuqa uu ka heli jiray lacag dhan 200 oo shilin sida uu barnaamijka gargaar ugu waramay Yusuf Abshir Umar waxaan ahay ilmaasayalka ayaanay xerada qaxootiga Dhagaxley aan deganahay dhagaxayga markii hore waxaan jirnay lacag fiican oo 200 ama 300 oo aan ka qadan jirnay oo waxaan ka geyn jirnay haddana waxaan kaleena u badan maanta u badan waxaan kaleena 100 shilin haddana 100 shilin hadda 50 shilin adig ku qadis 50 shilin kaleena hadda maanta kale 50 shilin halina waan gartay bal markii aad heli jirtay adiga lacagta fiican oo kale dhowrka boqol aad heli jirtay maxaad ku qaban jirtay waxaan ku qaban jiray dhar baan ku gadan jiray wixii soo harana xafadan geen jiray maxaa ku kalifay inaad ka shaqaysid meeshan agoon baahay xafadiya waxa laga rabaa shaay baa laga rabaa dhar meesha saantaas bay ku kaliftay waayo waxa lacagta meesha suuq dhan baa isku mid noqday lacagtu way jirtay dadka ma soo noqon markii hore lacag baa laga heli jiray dadka dhan hadda suuqa lacag ma baa waxaan casin jiray 20 ama 25 ama 20 baan casin jiray haddana waxaan casiyaa hadda baad waxaan casiyaa 10 ama 5 inaan ka bedelan rabaa hadda iska day bahalka dhan hadda waxaan rabaa maadaama markii hore lacag badan aan ka helay hadda waxaan rabaa inaan iskuul aan barto doonay hadda iska day bahalkan suuqa haduu gebno ma aha oo kaliya dadka danyarta ah ee ka shaqeeya shaqooyinka yaryar balse waxay arintani suuq la'aantu ay raad ku yeelatay dadka masaakiinta ah ee ka dawarsada suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley ee aan heli karin nolol maalmeedka reerkooda iyadoo dadka suuqleyda ah ay dadka inta badan ay taakuleeyaan magacayda Cabdi Aadan way wax waan ku haasanay laakiin hadda waxba kuma haasano zag baan joognaa waxbana kuma haasano sida waxu hel jirnay maxay ahayd markii muslimiinta aan dhaxgalno wax baan ka hel jirnay haddana waxba zag baan hanay waxba ma helhayno gacantayna waa waxba ma ku jiro waa dad masaakiin ah oo muslimiinta aan ku dhaxnooleen yaa wax idin siin jiray xagee ku tiirsaneedeen ma dadka aan suuqleyda tukaanleyda aad baad wax ka qaadan jirteen mise cid gooni oo kala wax idin siin jirtay ma cid gooni waxna siin jirtay ma jirto tukaamaaleyda iyo muslimiinta oo
dadka u gargaara in baan ku dhex jirnay nimankaas baan ku dhex jirnay ilaahay baa wax nooleen jirnay laakiin ayaga baan ku dhex jirnay waan gartay maxaad ka heli jirteen bal marka waxyaabaha idin siin jireen ma lacag cadaan idin siin jireen ma alaabo kale aad ka heli jirteen maxaad ka heli jirteen maya maxaan ka heli jirnay xoogaa lacag baan ka heli jirnay oo nagula saacidayn jirnay xoogaa sokor iyo waxoogaa iyo bacdina caleen iyo wax baan ka heli jirnay bariidii xoogaa waan ka heli jirnay ninkii marka masaakiin iska bacdina un sidaas ayaa ogaanay dhibkaasna hadda waa nahaas laakiin waxba ma helayno hadda waan gartay marka hadda maxaa u sababaynaysiin gargaar fiican oo nala siiyo oo aan ka codsanaynaa dadweynaha meel walba aan ka codsanaynaa laakiin hadda gacantaan dhulka iska taa masaakiinan haddan laakiin hadda waxba ma helhayno iska fafadhin waxba ma haynay dhahayn waxba ma hayno wax aan hayno ma jirto suuq la'aan waan iska fafadhin dhaqdhaqaaq la'aanta ballaaran ee dhanka ganacsiga ee ka jirta xerada qaxootiga ee Dhagaxle ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay dhammaanba bulshada qaybaheeda kala duwan khaasatan dadka danyarta ah ee ku nool xerada qaxootiga ee Dhagaxle waana markii ugu horeysay ee suuq la'aan noocan ay soo marto xerada qaxootiga ee Dhagaxle inta la xasuusan yahay